Maxamed Yuusuf oo inoo wada video kale oo aad u xiiso badan. Falan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato kanaalkayga, waxaan kaa codsanayaa inaad kanaalka subscribe aad saarato, gambalaalkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo ee arka video walba in halkan soo gelino ee ku saabsan dhanka tiknoolajiyada. Like saar videoga haddii aad ka heshay, una share garee asxaabtaada kale si videoga uga faa'iidaystaan. waxaa kale noogu reebi kartaa commentigaaga wixii su'aalaha iyo talaha oo video ku saabsan ama ka baxsan ee ku saabsan tiknoolajiyada. insha Allah waynu kaaga soo jawaabi doonaa hadduu eeb yiraahdo. haddaba videogeena maanta hore inuu galno doonaa sida dib loogu soo ceshto Facebook ay ka lumo hore. dadka inta badan mushkiladda haysta waxa weeyaan in qofku ka lumo Facebook uu siyaas ooga samro, laakiin maanta muuqaalka waxaad ku baran doontaa qaabka dib loogu soo ceshto Facebook ay ka lumay. mana doon inaan ka hordhac ee ku soo dhawo. Okay, marka ugu horeyso waxaan soo furinaynaa applicationka Facebook. log out baan ayaa midkii furnaa iska xiraya oo waxaan doonayaa si aan mid kale aan practicalka aan ugu bixiyo. ugu horeyn waxaan rabaa kan ayaa hadda waxaan ilaaway passwordkiisa. waxaan rabaa inaan passwordkiisii ay sheega aan dib u helo. passwordkii waa ku celcelinayaa, wuxuu leeyahay passwordka gelisay wax khalad u sheegaya. waxaa sameynaysaa oo kaliya forget password baa dhahaysaa. forget password markaad dhahdid waxaa sameynaysaa lambarka uu ku sameysnaa. ani lambarkaygaan 99 ka ugu sameysan yahay. ama waxaa sameynaysaa Facebook iyo Gmailkii si automatic wuxuu ku weydiinayaa code buu ku weydiinayaa. codekaas taleefanka ayuu kusoo dhacayaa oo qaybta message-ka ayuu kugu soo dhacayaa. waad tegaysaa qaybta message-ka ayaad tegaysaa. waxaad soo ogaanaysaa codeka lagu soo diray. codeka lagu soo diray waxa uu noqonayaa midkan ugu hooseeya oo ah 032699. marka asagana waa igana raali noqdo oo aniga qarinayaa iyo xogaa secret uu rabaa inuu noqdo. passwordkaas ayaan ka dhigtay continue ayaan leeyahay. wuu wareegayaa oo wuxuu si automatic ugu dhex geenayaa marka Facebook isagoo passwordka hadda gelisan uu noqonayo ka ku gelisid. wuxuu yiri try again passwordka kaadi. continue ayaan leeyahay markan. si automatic ayuu isku gelinayaa. okay ayaan leeyahay. hadaysa wuxuu ku yiri hadda wuxuu weydiiyay inaad sawir saarto. uma baahna marka skip ayaan iska leeyahay. waxaan rabaa si hore inuu soo galo oo aan sharaxdo. wuxuu ku hadda waxaysaa not new now waxaysaa not now. hadda waa kan automatic ayuu ku dhex keenayaa Facebookii dhexdiisii. passwordka wuxuu noqonayaa ka dambe hadda ku samaystay.